بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland ay ugu horeeyaan saxaafadda iyo mas'uuliyiinta qaranka meel ay joogaanba waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo qodobo yar oo kooban muddo dheer baynu ku soo jiray arrintii doorashooyinka iyo dhaqaajinteedii waxaan doonayaa ugu horeyn inaan hambalyo u diro guddiga doorashooyinka qaranka oo maanta dhaqaajiyey hawshii ugu horeysay ee aynu ka bilaabi lahayn doorashooyinka taasoo ah inay maanta u kala ambabaxeen labadii degmo ee ugu horeeyay ee tijaabada laga qaadi lahaa systemkii doorashooyinka oo ah degmada Oodweyne oo tiimkii maanta u baxeen iyo degmada Balligubadle oo ay berri baxi doonaan tiimkeedu taasoo guddiga doorashooyinku ay tijaabadii ugu horeysay ku qaadi doonto aad baan ugu hambalyeynaa inay dhaqaajiyeen shaqadii guddiga doorashooyinka ee muddada dheer inagu qaadatay inaynu sugno muran iyo isqabqabsi kadib waxaan u hambalyeynayaa xisbiyada qaranka guddoomiyeyaashooda madaxweynaha qaranka iyo dhammaan cid kasta oo heshiisyadii doorashooyinka ka soo qayb qaadatay guddiyadii xisbiyada ee wada hadallada iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkiisa insha Allah taala waxaan leenahay ha loo diyaar garoobo maadaama maalinta Arbacada oo tijaabadaas u dhacayso labada degmo ugu horeeyay aynu ka qaadayno ha loo diyaar garoobo doorashadii oo insha Allah taala dhici doonta bisha May 2011 sidii heshiisku ahaa 2021 sidii heshiiska xisbiyada uu ahaa arrintaas waa guushii ugu horeysay ee aynu dhaqaajinay maanta ee aynu ka gaadhnay arrintii doorashada waxaan kale oo soo dhaweynaynaa haddaan nahay xisbiga u cid laalidii qodobkii inagu taagnaa ee maxkamaddu laashay ee ahaa qodobkii ahaa mar qura ee ku jiray xeerkii doorashooyinka 2001 laalidaasu waxay fududaysay inaynu dhaqaajino hawlihii inagu taagnaa ee doorashooyinka taasoo ay ogolaatay maxkamaddu in lagu galo nidaamkii ahaa 6 degmo ee 60kii oo ingiriisku inaga tahay xornimada markaynu qaadanay ahayn wixii ay baarlamaanka ku lahaayeen oo lagu dhuftay 2.5 nidaamka in lagu galo doorashada oo qodobkaas ah oo aynu sidaa ku gallo baarlamaanka soo socdana ku yeelano inta wixii ka dambeeyana sansarkii iyo tirakoobkii ummadda reer Soomaaliland oo dan u ah gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan aan gobol quraga dan u ahayn aaminsanahay balansiga iyo isu miisaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay in sansar la sameeyo la tirakoobo lagu base gareeyo haday tahay developmentka iyo horumarka ummadda iyo gobolada iyo haday tahay doorashooyinka iyo xildhibaanada ama deegaan ha noqdaan ama baarlamaan ha noqdaan marka tirakoobka la helo ay noqonayso arrin cadaalad ah oo gobol waliba uu xaqiisa ka helo taana waanu hambalyeynaa waxaan u sheegaynaa ummadda reer Soomaaliland maadaama maanta aynu 82 xildhibaan oo baarlamaan dooranayno wax dhowr boqol ku dhow oo golaha deegaanka xildhibaanadii golaanka deegaankana dooranayno in badan waxaynu ka cabanaa nidaamka doorasho aynu gallo iyo cid aynu soo saaro waxaynu ka cabanaa doorashooyinka inaynu رالي هذا أنا إذا كان رأيي أنا إذا كنت بدعاية رالي هذا